waxaa soo caga dhigatay diyaaradda National Airways waxa ay duulimaad toos ah markii ugu horeysay ka bilowday Muqdisho iyo Addis Ababa wixii ka dambeeyay sanadkii 1977 waxa la sheegay inaysan jirin diyaarado rakaab ah oo si toos ah isugu xiran Muqdisho iyo Addis Ababa xiriirka dowladda Soomaaliya iyo Ethiopia oo waji cusub yeeshay ayaa loo sababeynaya in ay soo hagaagaan xiriirka ganacsiga labada dal National Airways ayaana markii ugu horeysay suuro gelisay duulimaadkaasi mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada iyo gobolka Banaadir ayaa xariiqa ka jaray diyaaraddaasi xaflad kooban oo lagu qabtay garoonka diyaaradaha Aadan ee Muqdisho ayaa laga hadlay muhiimadda adeega cusub ee shirkaddan agaasimaha National Airways ee koonfurta Soomaaliya Cabdifiiroole ayaa ka hadlay duulimaadkooda Muqdisho iyo Addis Ababa iyo adeegyada kale ee gudaha dalka anigoo ku hadlaya magaca shirkadda waxaan leeyahay waa opportunity aanay shirkadihii hore xamar bilaabi jiray iyo waddo cusub aanay helin sidaan ka warqabno roodkan hadda aan bilownay ee Addis Ababa iyo xamar ah muddo 41 sano ah ayuu xiraa isagoo aan si commercial la isaga duulin biidnillaahi alkariim waxaan noqonnay diyaaraddii ugu horeysay ee ku guuleysatay inay ogolaasho labada dawladood ayagoo raalli ah oo faraxsan ay ka hesho inay roodkan bilowdo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Usmaan Yariisow ayaa bogaadiyay doorka shirkadda National Airways diyaarad ganacsi inay markii ugu horeysay ka bilaabayso duulimaad Muqdisho iyo Addis Ababa runtii waa farxad weyn waxay u tahay bulshada Soomaaliyeed meel walba joogaan waxaana mahaddaas iska leh cid allaale ciddii kaalin ka geysatay oo suurtagelisay inay arrintan dhacdo waxaan u mahad celinaynaa ganacsatada Soomaaliyeed ee ku fikirtay bulshada baahidooda sidii loo haqabtiri lahaa taas annagoo ka duulayno sidoo kale waxay muujinaysaa horumarka baaxadda leh ee dalka uu samaynayo guud ahaan gaar ahaan horumarka isdaba joogga ah ee caasimadda Muqdisho oo ah muraayaddii ummadda halbowlihii shacabka magaalo madaxdii ummadda Soomaaliyeed taasna waxay nagu dhiirigelinaysaa annaga howlaha aan wadno oon ballan qaadnay inaan noqonno maamulkii shacabka wax alaale wixii shacabka dan u ahna la hirgeliyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada Xirsi Aadan Roble oo ka qayb galay munaasabadda xarig jarka diyaaradda cusub ayaa ka hadlay muhiimadda adeega cusub oo ay shirkadda soo bandhigtay diyaaraddan National Airways oo qaban doonta howlo baaxad leh oo shaqo oo u fududeyn doonta shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan duulimaadka sidaa daradeed waxaan rabnaa inaan shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan u sheegno in ay ku soo biirtay shirkadda National Airways duulimaad furan Salman Xaaji Axmed Raagi telefishinka iyo raadiyaha dalsan Muqdisho.